السلام عليكم سودو أولال إن شاء الله تعالى ما توحي نقاط دونا عشر كافراد نكبرني لغة جافا سكريبت ما أنتي وحين برد دونا أدوار اللي يدمو وحلو مقعاو كنترول فلو أما كنترول ستيتمنت كنترول ستيتمنت أما كنترول فلو وأنا إنه أود ويلا كرنو معمول كرنو قاب لورن جرينا كودس كان هل كعشر كان عشر اللي كوري aan awood u lahayn inaynu maamul karno qaabka loo isku gareeyo ama loo ran gareeyo koodiska aynu qorno koodiska waxaynu ku maamul karnaa if statement else statement iyo else statement if statement waa hadii ay jumladan true noqoto ayaa inoo loo ran gareyn doonaa hadii jumladan la waayo waxa loo gudbi doonaa ama la isku ignoor gareyn doonaa isla jumladan waxa loo gudbi doonaa else statement labadan waa basically balse waxaa jirto markii aad condition badan aad qorayso else if statement inuu dhex gasho doontid labada jumladood waan isla arki doonaa waxaan ku hormari doonaa marka horeeto if statement marka horeeto markaan jumlad aynu jeegareynayno waxa muhiim marka horeeto ma qasbi inaan variable abuurno waxaan abuuri doonaa variable waxaan dhihi doonaa variable kan age oo kale ayaan ku shubi doonaa 15 marka waxaan dhihi doonaa hadii uu age uu ka weynaado 15 waxay inoo qabataa shaqadan waxay inoo soo daabacdaa qaangaarayata hadda waxaynu baahnay age-ka qofkan hadii uu ka weynaado 15 waxa soo daabacdaa qaangaarayata waana rogaray doonaa waxaan dhihi doonaa kadib refresh sida u jeedinba hadda wax condition ah ama wax statement inoo soo daabixa sababtoo ah age waxaan ku shugnay 15 waxaanu dhahnay conditionka age hadii uu ka weyn yahay 15 inta 15 ku jirto 15 ka weyn tahay maya balse meeshan waxaan dhihi doonaa equal hadii uu qofkan 15 uu ka weyn yahay ama da'diisa tahay 15 waxa dhahdaa qaangaarayata sawjada waxa la dhahay qaangaarayata hadda waxa la ragaray doonaa kaliya hal statement hadii statementkan oo false oo noqdo wax dhici doona ma leh inta 14 ka dhigno waxay noo soo daabici doona ma leh sababtoo ah statementkan haduu false noqdo statement kale oo la fiiro doona ma jirto marka waxaan ku diri doonaa isla statement waxaan dhihi doonaa else markaan dhahno console.log waxay noo soo daabacdaa maadan qaangaarin hadda waxaynu filaynaa inuu soo daaco ma aanan qaangaarin sababtan waxay tahay age waxa ku jiro 14 age hadii uu ka weeyaa ma la eegay 15 qaangaaraya tayaal dhihi doonaa intaas waxaan ahayn 15 wax ka yar hadii la soo daabaco waxa la dhihi doonaa qaangaarmatiid hadda waxaynu soo geli doonaa marka else if statement waxaynu ku dabaq doonaa real project ama real life tusaale ahaan waxaynu soo qaadan doonaa grade waxaan u baahanahay inaan xisaabino ardaygan dhibcaha uu keensaday hadii uu 9 wax ka kareeyo uu keensaday waxaan dhihi doonaa grade A ayaa tahay 80 grade B grade iska ayaan ku dabaq doonaa marka waxaan dhihi doonaa intoo kaleeto variable ayaan abuuri doonaa variable kan waxaynu ku shubi doonaa grade oo kaleeto waxaynu sii doonaa marka horeeto 100 marka wada jeegareynayno waxaynu dhihi doonaa hadii uu grade uu ka weynaado 100 dhibco 100 ka badan hadii la soo geliyo waxaan dhihi doonaa dhibcahan dhibca jira maahan sababtoo ah 100 wax ka weyn grade ka weyn ma jiro waxay noo soo daabacdaa marka console.log waxaan dhihi doonaa dhibcaha ma ahan mid jiro okay marka waxaan dhihi doonaa else if waxaynu ku dabaqi doonaa else if tan waxa la isticmaalaa markii aad conditions badan aad jeegareynayso marka waxaan dhihi doonaa else if taas hadii san dhicin maxaa la sameyn doonaa else if markaan dhahno waxaan dhihi doonaa grade ka qofkan hadii uu ka weyn yahay ama uu leeyahay 9 waxa inoo soo daabacdaa console.log grade A qofka gradekiisa hadii uu yahay ama uu ka weyn yahay 90 waxa dhihi doonaa waxa tahay grade A intaan ayaan soo celceli doonaa kaliya waxaan ku bedeli doonaa qaybta conditionska statementiga qaybtan waxaan dhihi doonaa hadii uu gradekiisa uu ka weyn yahay 80 qaybtan waxaan dhihi doonaa hadii gradekiisa uu ka weyn yahay 70 inta 60 ayaan dhihi doonaa 80 marka waxaan dhihi doonaa grade-keedu waa grade B halka 70 aan dhihi doonaa grade-keedu waa grade C waxay
waxaynu dhiman laba grade salkan ayaan soo koobi gareysan doonaa waxaan dhihi doonaa qaybtan 6 Soomaan dhihin 50 hadii uu ka weyn yahay waxaan dhihi doontaa grade E inta marka uma baahanin intaas hadii dhici wayso maxaa la qabanayaa ls ta waa last condition waxaan dhihi doonaa marka waxay noo soo daabacdaa console.log waxay noo soo daabacdaa grade kiisa waa violet oo noo soo gaabsan doona f kadibna waxaan u muujin doonaa calaamad muruga ah oo sticker ah waxaan dhihi doonaa stickerka muhiimta ayaan soo gasho doonaa oon ku xunnaayna inaga dhaca ardaygii konton wax ka yar keenaa meeshaan marka waxaan dhihi doonaa haddii uu ka yar yahay bis waaya waynu rangareyn doonaa marka hadda waxaa inoo soo baxay grade A sababtoo ah grade waxaa ku jiro 100 ayaa ku jiro grade waxaynu kusoo shubanay 100 ayaanu kusoo shubanay haddii aanu meesha ku shubno 100 wax ka badan grade kan ma aha mid yar dhaal raba waa kana soo jeedii grade kan ma aha mid jiro waxaynu ku shubi doonaa oo kale 70 marka ku shubno waxa laga rabaa inuu grade C waxaan filayaa inaan isla fahanay qaabka uu shaqeeyo control statement ama control flow waxay raadaan dib u sharaxo waxaynu soo dhahnay marka koowaad control flow waxaa la rangareyn doonaa iftan haddii ay dhacdo inta kaleeto waa la iska ignore gareyn doonaa iftan haddii sax noqoto intaas kaleeto lama baahno balse tan haddii dhici wayso waxa loo gudbi doonaa ls tan haddii ay fusho intaas kaleeto waa la sii ignore gareyn doonaa haddii tan fuli wayso waxaa loo soo gudbi doonaa ku xigto ilaa laga taga lastiga midda ku xigto ka korayso iyadoo false noqonin tan ka hooseyso lama aadi doono intaas hadii la waayo maxaa la sameynayaa qaybtan ugu dambayso ls blogan ayaa fuli doonaa koodkana halkaas ayuu ku rangareysmi doonaa marka waxaan filayaa inaa isla fahanay control flow wax uu yahay shaqada uu qabto fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir channelka subscribe leh sidoo kale tan asxaabtaada share garay waad ku maasantaa daawashada muuqaalkan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh